faysal waa runtii oo naga xishooday waana runtii oo ragga uu ku tirnayo saaxiibadaan nahay wax badanna waa ka soo shaqaynay waliba aniga isagu raggii khaatumo iyo arrimaheeda berigaad loo shaqeeyay laakiin walba intiisa waa la odhanayaa horta kow wuxuu yidhi cadceed baa halkan lagu soo dhaweeyey idinku garan maysaan ragga waaweyn cadceed garanaya nin waliba wuu qoslaamo uu naxayo dee cadceed wuxuu ahaa ninkii magaaladan loo tirinayo inuu maxaa dhahaa ka takhalusay dumar iyo caruur iyo waayeel iyo culimo cidna aan ka tegin buu ahaa isagu uu soo dhaweeyey uuna soo dhaweeyey wallahi anigaaba naxay aniga oo maxamed xaajaadana cadceed wuu xidhay habeen kuna anigoo burcad joogay oo xamar ka yimi oo dhallinyaradii jaamacadaha xamar galay ilaa burco iyo hargeysa jaamacada ma lahayn ay waraaqay soo dhiibay ahaan waalidkii u geey oo wali aanan waalidkay u tagin waxaafada aduudada aan marayo aan sida amaanada iska gudbiyo waraaqihii aan albaabkii ugu horeeyay garaacay ayaa ciidankiisii halkaa qabtayo sawirayga iyo waxa arkeen mooyaan si fudud baa halkan biriishka layga soo gudbiyo cadceedo halkan imika joogna maraya oo kormeel ku maraya magaalada isaga laftiisa baa leeyay isna gaarigiisa buu igu qaatay ilaahay baa iga soo saaray waxaan u mahad celinayaa oo shaqada wax ku lahaa nin isaga laftiisu isaga u dhigma oo saldhiga haystay ama qaybta top dheer oo dhan haystay oo booliska ahaa sarkaal sare ahaa chamber loo oran jiray dad badan baa garanaya ilaahay ha naxariisto ninkaasa oo markii dambe asrintu soo gashayna si nabadgeliya isaga iyo reerkiisaba si nabadgeliya loo dhoofiyay sumcadda ummadda ku dhaxlahaa kaasoo uu isagu markaa igu wareejiyay oo sharci uu siinayay ayaa iga soo saaray faysal hadduu kaasi ku soo dhaweeyay ee horta khayr Allah ku siiyo kuwan iminka aad ku qaylinaysaa waa kuwii isagana halkaa maxamed ahay dhigay ee isagu uu dagaalamayay ee dalka xoreeyay ka xoreeyay marka hadda taasi waxa weeyaan intaasaan faysal odhanaya waxaan leeyahay nicmada wixii aynu haysano wuxuu kaloo saaxiibka yidhi guurtida iyo baarlamaanka labaduba waa ila colo waa raagteen baan ay igula coliyihiin yaa waacid nafsak yaa walaalkay malaa 22 sano hadda waa joogaa haddii raagitaanku ceeb yahay anigu waxaan u diyaarahay inaan wasiirnimada aan u baneeyo dhallinyaradane bal isaguna hoggaanka ha baneeyo waxa weeyaan maanta raagidda sida hawa aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan leeyahay oo kaga baxaya faysal wuxuu yidhi hawaryartayda igu tidhi war anagu waxaan leenahay anaga qaranku wuxuu nagu yidhi qarannimada ilaaliya anaga qaranku wuxuu nagu yidhi midnimada ilaaliya anaga qaranku wuxuu nagu yidhi mid ahaada qaranku wuxuu nagu yidhi daacad ugu shaqeeya dalka cadowgana ka difaaca qaranku nagu yidhi qaranku wuxuu nagu yidhi dadka kala qaybino midabo iyo magacyo haw kala yeelnay buu qaranku nagu yidhi taasaan anagu ku shaqaynaynaa taasaan aan nagula shaqaynaysaan nabiyullaahi wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh